السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومركله يعني جواح عبد الولي محمد ما جرتا إن استعمالي سيت فلاش sida la ogyahay inta badan waxa la isticmaalaa flash balse flashka markii aad geliso computerka waxa arkaysaa file formatska inay kala duwan yihiin ama qaabka aad u format gareynaysid inay kala duwan yihiin waayo waxa jirta cashir aan hore ugu soo diyaarinay oo ah file adigoo haysata flash 32 GB inaadan awood u lahayn file 6 GB inaad ku shubto waxaan u maleynaa inay hadda ka hor ciladaas aad aragtay haddii ay tahay qof ciladaas hadda ka hor u arkay fadlan muuqaal aan hore ugu soo diyaarinay ayaa jiro muuqaalkeeni dib ugu laaba ama muuqaalka aad fiirsanaysid hoostiisa ayuu ku yaalaa balse maanta muuqaalkan waa ay ka duwan tahay waxaan ku qaadan doonaa saddexda file ama saddexda format ee u kala baxaan markii aad flash ku format gareynayso aan isku kiibaro magacayga waa Cabdiwali Maxamed halka aad wax ka baranayso haddaba marka flashka ayaan qabanay waxaan gelinaynaa computerka okay flashka waan gelinaa computerka maxaan sugaynaa in kaxay aan aadna computerka waxaanoo kacsan computerka waxaan furaynaa file explorer ama my computer qof bisiida u yaqaano okay halkan waxa ku arkaysaa inuu inoo yaalo flash ee ku qoran tahay 128 GB ugu horeen sidee ayaan ku ogaan karaa flashka aan hadda isticmaalayo formatkiisa فيلك أما hard diskiga aad rabtid ayaa dul tagaysaa right click ayaa leedahay ama flash haduu ahaan lahaa ama hard drive haduu ahaan lahaa right click ayaa leedahay kadibna qaybtan hoose waxaad ka arkaysaa inuu kugu qoran yahay propertieska ayaa kale ku siinaysaa waxa ku soo baxayo dialog box waa arkaysaa marka generalka ama file systemka inuu yahay exFAT marka waxaan rabaa marka inaan ku kala sharxo waa maxay FAT32 waana maxay NTFS waana maxay exFAT mar walba marka qaabkaas markii aad u faahantid hadhow marka qaabka aad adiga rabtay inaad flash ku isticmaasho ayaa ku sahlanaanayso waxaan format gareynaynaa flashkan ugu horeen waxaan ku format gareynayaa FAT32 flashka ayaan dul tagayaa right click ayaan leeyahay kadibna waxaan leeyahay format markii aan dhaho meeshan ay ku qoran tahay restore defaultiga ayaan kali ku siinayaa waa arkaysaa exFAT ayuu built-in inkiisu yahay flashada isku mid ma ahan ana flashka hadda isticmaalayo waa midka 3.0 speedkiisu u yahay marka qaybtan ayaan furaynaa waxa arkaysaa inuusan inoogu qorneenba exFAT marka flashada kala nooc waay hadda flashkan waxa arkaysaa inuusan ba ku jirinba FAT32 kaadi flash kale ayaan soo qabanaynaa okay flashka waa aan helnay maxaa sameeynaa marka flashkan kale ayaan qabanaynaa waxaan gelinaynaa computerka microphone-ka okay flashki kale waan qabanay waxaan gelinaynaa computerka kan halkan ayaa geynaynaa waxaan rabaa inaan ku kala sheego 3.0 flashka marka uu yahay iyo 2.0 flashka marka uu yahay laftirkooda farqiga oo kala dhaxeeya okay hadda midka aan gelinay waa 32 GB waa arkaysaa waa midka hadda ay ku qoran tahay USB device right click ama drive right click ayaa leedahay kadibna waxaan leenahay marka formatka ayaan dooranaynaa waa arkaysaa kana wuxuu leeyahay saddexda file sidee ku dhacda marka flashka 3.0 waa uu ka speed badan yahay flashka 2.0 because of gen 1 iyo gen 2 ayaa u kala baxaan hadda flashka 3.0 waa generation 3 hadda waxaa soo baxday 3.1 generation 4 ayaa hadda loo sii socda okay maxaa sameeynaa marka waxaan rabaa marka inaan ku kala sheego marka marka aan ku leeyahay FAT32 iyo exFAT iyo NTFS maxay tahay farqiyada u kala dhaxayso waxaan rabaa marka aan ku bilaabno midka ay ku qoran tahay FAT32ga waxaad u isticmaali kartaa markii aad isticmaalaysid tusaalo feelasha yar ka ah markii aad feel kale ku koobiyeynaysid waxaa jirta marka markii FAT32 aad isticmaalaysid TV-yada ama LCD-yada ee la isticmaalo oo magaalka laga iibiyo hadii uu ahaan lahaa Samsung, LG, bla 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 dhamaan TV-yada oo dhan FAT32 markii aad u format gareysid ee aad file ku shubto filekaas TV walba oo aad ku daarto caadi u support gareena inta soo ilaa fahantaa umaleynaa FAT32 markii aad fileka ama flashka formatkiisa aad ka dhigtid FAT32 video walba ama image walba ama music walba ee aad ku shubtaa TV walba waa u support gareynaya hadii uu yahay smart TV ama midka LCD-yada caadiga ee loo isticmaalo okay kan waa aan fahnay
laakiin halka cilad uu qabo FAT32 ayaa waxay noqonaysaa marka good news iyo bad news ayaa la kala yiraahdaa. Okay, marka meesha hadda good news-ka waa kuu sheegay oo ah FAT32ga failka aad ku shubto inuu LCD-yada ama smart TV-yada uu soo akhrisanayo. Markii haddana aan furo oo aan doorto exFAT ama inta aanan dooranin FAT32ga aan dib ugu laabano, FAT32ga ma qaadayo flashka aad wadatid haddii uu yahay 128 ama 32 GB ani any GB uu yahay. Had tusaale waa 32 GB 32 GB haddii aan maago fair 6 GB ah inaan ku shubo ma qaadayo FAT32 sababtoo ah FAT32ga limit ayuu ku eg yahay, limitkiisana waa 3.99 GB bis ayuu qaadi karaa. 4 GB oo buuro ah ma qaadi karo, 4.1 ma qaadi karo, 4.2 ma qaadi karo ilaa iyo inta ugu dambayso. Intaas waa isla fahantay. Okay, FAT32 bad news-giisa iyo good news-giisa waa labadaas. Okay, aan furno marka aan doorano exFAT. exFAT-ka muxuu kaga duwan yahay FAT32ga? exFAT-ka wuxuu kaga duwan yahay waa speed, waa high performance, feelasha 90% aad u shaqeynaa. Sidoo kale dadka isticmaala Mac iOS-ka aad ayay u isticmaali karaan marka uu u yahay exFAT. Awood wuxuu u leeyahay Mac fail ku jiro inaad copy ka soo tiraadid aad keysan kartid Windows adigoo joogana inaad fail ka soo qaadi kartid aad geen kartid Mac. Sidoo kale FAT32ga Mac wuu soo akhrisan karaa laakiin awoodda uu ku leeyahay exFAT-ka uma lahan FAT32. waxaan rajaynayaa intaas iyadana sidoo kale si fiican ay la fahantid. Okay, waan furnay waxaan ka dooranay marka midka ah NTFS. NTFS 99% Windows-ka wuxuu u isticmaalaa database. Markii inta badan aad aragtid local C, local D, EF bla 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 hard disk-yada badan markii aad cusub yahay aad aragtid oo aad soo gadatid aad computer-ka gelisid waxa arkaysaa automatically inuu u format gareysan yahay NTFS. NTFS-ka waxa waaye limit ma lahan, waxba ma lahan, kaliya waxa ku xukumo GB-ga aad soo gadatay. Tusaale 1 TB aad soo gadatay ama 2 TB ama 4 TB ayaa soo gadatay. 4 TB-ka ilaa aad ka buuxinaysid sida exFAT oo kale ama FAT32ga oo kale intaan ku ekahay intaan kala ma qaadi kari intaan ku ekahay ma yaqaan. Asiga waxa waaye ilaa iyo cabaar ayuu ku qaadaya. Marka NTFS waxa isticmaalo operating system-yada. Haddii marka ay dhacdo in NTFS aad u format gareysa flash aad rabtid inaad u isticmaasho Mac absolutely ma soo qabsanayo. waa in aad heshaa software yar oo waxaa jirto Mac lagu shubto, Mac ku sahlayo hard disk-ga ama flashka NTFS-ka inuu ku soo qabsan karo. waxaan u maleynaa marka inaad kala fahantay NTFS, exFAT iyo FAT32. exFAT-ka iyo NTFS-ka smart TV-yada qaar ma soo qabsanayaan haddii uusan markaas TV ama smart TV-ga aad isticmaalaysid uusan ahayn full format. haddii full format uusan lahayn waxaa arkaysaa feelasha qaar inuusan ku support gareynaynin. failkii computer-ka keenaysaa, failkaad ku shubaysaa waa nadiif, failka qaaday inta gelisay madaarmooy. maxaa keenay? waxaa isdiidan formatka flashka aad u isticmaashay iyo TV-ga formatka uu rabo inuu helo ayaa isdiidan. marka waxaan u maleynaa inaad fahantay farqiyada u dhaxeeyo FAT32, exFAT iyo NTFS. ugu dambeyn wixii aad raadinaysay waa aad heshay. fadlan waxaanu kaa codsanaynaa inaad inoo subscribe gareyso channelka, sidoo kale aad inoo like gareyso muuqaalkan iyo muuqaalada kale. hana ka iloobin inaad doorato gambaleelka si aad u hesho cashir walba oo aan markaa soo geliyo. anigu waxaan ahay qofkii ku baray, adiguna waxaa noqotay qofkii bartay. waa inoo iyo cashirkeena xiga iyo anigoo ah Cabdiweli Maxamed. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.